بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان halkan waxaan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gaar ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo shacabka gobolka Bari. Anigoo ah Sakriye Cali Xaaji Saciid. Hadda waxaan ku sugnahay magaalada Boosaaso. Saaka video baan duubay wixii aan ka digayna waa dhaceen. Hase haatee waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo saraakiisha maanta ciidamada hogaaminaya dhamaantoodba xoreynta gobolka Bari oo hadda ku sugan magaalada Boosaaso. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shacabka gobolka Bari oo ku sugan deegaanada gobolka Bari oo dhan wanaagii iyo soo dhaweyntii ay kala kulmeen ciidamada xoreynta gobolka Bari. taas markaan ka gudbo walaalayaal ciidamada xoreynta gobolka Bari maantay waxa ay ku soo wajahanayeen qayb kamid ah dhamaantood ma ahayn guuto kamid ah baa waxay ku soo wajahanad inay soo gasho magaalada Boosaaso. kadibna سعيد عبد الله الدني وحي عيدن u jooga magaalada Boosaaso oo technico ayuu amar wuxuu ku siiyay inay controlka u fariistaan ciidamadeena markay soo gaareen magaalada controlka markay soo gaareen ciidamada سعيد عبد الله الدني ayaa xabad ku bilaabay hase ahaatee ciidamadeena way ku guuleysteen ciidamada xoreynta gobolka Bari 35 maxaabiis ayay ka qabteen dhowr iyo 10 technicana way ka qabteen صدقي شنت nin oo maxaabiista ahaa ciidamada xoreynta gobolka Bari waa uga mahadcelinaya si wanaagsan ayay sameeyeen waxay ku wareejiyeen odayaashii deegaanka gobolka Bari wiilashaas wax dhib loo geystay ma jirto guryo aan ku hayno ma haynin meel aan ku xireyno ma haynin waa wiilasheeni wax dhib loo geystay ma jirto and I believe waxaan jecelahay dadkoodii jaa inay ku laabteen hase ahaatee ciidamada xoreynta gobolka Bari markay magaalada soo galeen xarumihii loo diyaariyay iyo meelihii loogu talagalay ayay degeen dhowr iyo 20 xarumood ciidan aad u tiro badan buu ahaa ciidan kale ka soo horeeyay magaalada joogana way jirtay magaaladu way xasiloon tahay magaalada Boosaaso shacabka gobolka Bari wax dhib ay ku qabaan ciidamadooda iyo dadkoodana ma jiro waxaan rajeynayaa birta iskuulada inay dib u furmaan aniga oo Sakriyana waxaan ugu baaqayaa dhammaan shaqaalihii hore ee u shaqeynayay سعيد عبد الله الدني iyo kuwii ka horeeyay magaalada ku sugan haday ahaan lahayd kuwa xabsiyada jooga haday ahaan lahayd kuwa stationada degmada jooga haday ahaan lahayd kuwa dekada jooga walaalayaal shaqadiina sidiina u wata cid weerar idinku ah cid idin leenaysa ma jirto ciidamadan waxay u yimaadeen inay dadka xoreeyaan waxay u yimaadeen culayska iyo dhibaatada dadkan deegaanadan ku habsaday inay ka kor qaadaan dhamaantiin waxa la idinka rabaa saas inaa u fahantaan dadku waa dad wada dhashay waa dad ehel iyo qaraabo ah waa dad xigta ah cid leenaysa iyo cid ku duulaysa ma jirto maanta ciidamadu markay soo galeen anigu goobaha ciidamadoo dhan waa tagay run ahaantii maantay nimanka sheeganaya filla Garowe ciidan ka hor imaan kara ciidamada aan arkay iyo hubka ay wataan wallahi oo billahi inuusan u jirin anoo Sakriye Cali Xaaji Saciid maantay Boosaaso dhexdeeda inaan dhaho maamulna kama jiro dawladna kama jirto filla Garowe beenba isku sheegeen wallahi billahi nimanka xiniyahooda waay nimanka aan arkaysan oo magaalada soo galay intaas xarimood degan wiilashaas xiniyahooda maanta ku hadlaaya awoodoodan ku hadlaaya ma idinla tahay inaan saas u hadli lahaa anoo magaalada Boosaaso jooga waa maya waay birito live video baan soo galayaa goobaha ciidamadoo dhan baan tagayaa ciidamadoo dhan baan idin la hadal siinayaa meel kasta aad joogtaan dadka qurba joogta waxa loo baahan yahay iyo dadka gudaha jooga gaar ahaan waxaan la hadlayaa gabdhaha gobolka Bari walaalayaal waxa loo baahan yahay ciidankiina inaad garab istaagtaan waxa loo baahan yahay wiilasha inaad niyada u dhistaan inaad cunto karisaan inaad dharkooda dhaqdaan inaad daba istaagtaan baa loo baahan yahay gabar kasta oo gobolka Bari joogta waa inaa ciidamada xoreynta gobolka Bari garab istaagtaan shaaha karisaan sabaayada karisaan cuntada karisaan xarumahooda ugu tagtaan waa wiilashiini waa dadkiini waa ehelkiini dadtii u yimaadeen waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo aan halkan ka cadeeyo Cabdiraxmaan Faroole waa oday Soomaaliyeed anigu hadda koor wax badan baan ka hadlay maantana waa sinad wuxuu ku fadhiyaa dawladda federaalka kursiga kaga fadhiyaa sinad waxaan kale oo rabaa inaan sheego ninka la yiraahdo Maxamuud Shido waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ninka la yiraahdo Abgaalo oo wasiirka maaliyadda ah Abgaalo oo wasiirka maaliyadda ah iyo Maxamuud Shido oo wuxuu ku shaqaleeyahay wuxuu hay'aan garanaynin iyo Cabdiraxmaan Faroole oo 80 jir ah oo sinad kursiga uu ku fadhiyay soo baneeyay dawladda federaalka ah saddexdaas nin dhibaatada aan maleegaysaan idinkoo Aranjaan ah iyo dhibaatada aan maanta deegaanada ku haysaan dadka walaalihiina ay degan yihiin ama majeerteen ha noqdo ama harti ha noqdo Soomaalina waa idin ogtahay annaguna waa idin ognahay waana idin diyaarsanahay
dowladda federaalka codsi baan u dirayaa beesha caalamkana codsi baan u dirayaa arrimaha sida ugu dhaqsaha badan waa inuu soo faragashato waa inaynu uga hadasho waayo waxa soo socda in shaaha la kala qaadan waayo cusbada iyo sokorta la qaadan waayo dhibaato weyn baa soo socota mar rabno sidii 1991 dib ugu noqono ilaahayna naguma celiyo waxaan kaloo rabaa walaal inaan ka hadlo dadka qaxootiga ah ee goboladan bari 30 years la soo dhaafay deganaa dadka gobolada kale ka soo guuray oo last 30 years goboladan deganaa walaalayaal deegaankii dibaa joogtaan cidna weerar idinkuma ahan cidina idinkuma soo duuli karto dadka gobolka bari degan baa la mid waxaa tihiin shacabka gobolka bari business baa ku haysataa qaxooti baa tahay guri kiraa ku jirtaa guri aaleedahay baa degan tahay cidna kuma imaanayso qof dadka tuugada ah ama maafiyada ah qofkii isku daya inuu dhibaato u geysto businessyada ama meelaha dadka rayidka ay degan yihiin walaal gacan biraa leedku qabanaya nimanka roondada maanta magaalada wareegaysa caaway nimanka Saciid Cabdullaahi Diri nimanka u shaqeynayay oo jagbootiyasha ay u oolaayeen waxa dhacday jagbootiyasha dhan way ka qaadeen ma joogaan caaway guryahooday ku xireysan yihiin waxa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno nabadda xasiloonida iyo wanaagga intaas wixii kale oo dheeraada gadaal ayaan idin kala soo socodsiinayaa shacabka gobolka bari waa inaad garab istaagtaan ciidamada xoreynta gobolka bari saraakiisha hadday noqon lahayd social media hadday noqon lahayd magaalada meel kasta waa inaad garab istaagtaan waa inaad dhahdaan thank you wiilasha waa inaad madaxa ka shumisaan dumarkiina waa inaad guryaha ka soo baxdaan oo sabaayada iyo shaaha karisaan iyo bariiska iyo hilbaariga dhammaantiin waa idin salaamayaan oo Sakariya Cali Xaaji Siciida guul baan idin leeyahay meel kasta joogtaan tan mid la arkay maaha mid la maqlana maaha runtaan idin sheegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh